dowladda Puntland waxaana soo doortay shacabka waxaanu matalaynaa shacabka Puntland marka waxaa jira khilaaf muddo socday oo ahaa in la cunaqabateeyay rakaateeyay kelmadda saxda ah adeegsanka waa rakaato xaquuqdii Puntland ay u lahayd macaawanooyinka dibadda marka waxaan rabaa bal inaan wax yar guud maro macaawanadu maxay tahay sharciga dastuurka muxuu ka qabaa sideedaba article 50 ee mabaadi'da baarlamaanka federaalka ay ku jirtaa qofka muwaadinku meel kasta had joogo wuxuu lab ha noqdo deedig rag iyo dumar xaalad bulshada ku jiro mid dhaqaalaha ku jiro afkaar siyaasadeed ha qabo mid qabiil mid degaan mid xirfadeed muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay hadday noqoto khayraadka dabiiciga ama hadday noqoto macaawinad dibadda in si cadaalad loo siiyo marka anagu waxaan u hadlaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u hadlaynaa marka kuwaad qaranka Soomaaliyeed marka xildhibaano qaranaan laakiin haddana geela waa wada jira waana kala jiraa Puntland baan matalaynaa marka waxaa loo baahan yahay sharaf darro inoo tahay maanta inaynu qarankeennii inagoo maanta xaaladda adag oo dalku jira waan aragnaa in laynu ku haysto xataa jiritaankeenii uu halis ku jiro oo waliba la qorsheyna dhagara caalami ay jiraan 40 sano soo socota in isirka Soomaaliyeed la tirtiro in qaran Soomaaliyeed meesha laga saaro in diin islaam la tirtiro intaba ay dhagara socdo waay ma garan kareen og yihiin xukuumadda hadda joogta ayaga laga rabaa inay raadiyaan macluumaadka isaga marka waxaan rabaa in aan la niyad jabin shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland markii qaranku burburay majority ummadda Soomaaliyeed waxay u soo qaxeen gobolka bari Puntland guud ahaanba doorashooyinkii dhacay dad badan oo deegaanada Soomaaliyeed kamid ah ka soo jeeda ayaa dawladda hoose ka soo muuqday maamulka la dhisay marka waxaynu mudannahay walaalayaal xukuumadda waxaanu ka rabnaa jamhuuriyadda Soomaaliya xaaladda ku jira waan ognahay waxaynu ku jiraa wax la banana republic kelmadda banana republic macna badan bay leedahay waa jamhuuriyadda Mooska wadan la xanaaneeyo gacanta lagu hayo wadan qaniya xeebta leh khayraadka dabiiciga leh laakiin ayaan darro ay qabsatay 34 sano inaynu aqliyadii dalka burburisay oo ahayd wixii qabyaaladu sababka ahayd maanta Soomaaliya ilaa hadda ay socoto 4 sano hore ayaa jirtay sidaas oo kale ardayda Puntland waxbarashadooda shahaadooyinkooda lacagta la saaray marka waxaan rabnaa annagoo ku hadlana codka shacabka matalayna inaan la siyaasadayn macaawanada shacabka Puntland ay mudan yihiin waxaan rajaynayaa insha Allah